السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا دي سلام يا قيارة الشرف له أو سيدة توسك وحرن يوتيوب channel كيغا عافي ماتسن إي فيسبوك بيج كيغا دكتور جوهاري ومركلي برامج ديني تحناها عافيماتك ما أنتو حنك هاللينا سيدة لو سميو دايمو أما سيدة دريسن لو سميو markuu ku yimaado qof dhaawacan sidaad ula tacaali lahayd qofkaasi xaaladiisa caafimaad meeshaasi dhaawaca ah sidaad u dhayi lahayd haddii ay u baahan tahay tuliin iyo arrimo qalin la xiriir sidaad u samayn lahayd waxyaabahaad u baahan tahay dheemada aad ku samaynayso qalabkaad qalinka ku samaynayso waxyaabahaas oo dhan ayaan maanta uga hadlaynaa cashirkeena hadduu alla idmo haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato youtube channelkayga caafimaadsan fadlan subscribe sar gambalelka furo la wadaag asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale maanta waxaan ka hadlaynaa sida loo sameeyo dhaymo iyo qof dhaawac markuu ku yimaado sida dhaawacaas aad ula tacaali lahayd caafimaad ahaan ayaa maanta ka hadlaynaa waxaan isticmaalaynaa abiro qurux badan oo runtii kuu suuragelinaya sida loo sameeyo qalimada sida wax loo tolo sida wax loo dhayo sida qof dhaawacan oo ay ku jiraan wixii dhaawacay qaybo kamid ah hadday dhala ahaan lahayd biro wasaq iyo waxyaabo kale alwaaxiyo geedo iyo wixii la mid ah sida looga saari lahaa qofkaasi sida dhiigga qofkaasi uu ka socdo sida loo xakameyn lahaa dhiig baxa waxyaabahaas oo dhan ayaan idiin soo gudbi doonaa hadduu alla idmo cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay wounds dhaawacyada iyo qof dhaawac markuu ku yimaado sida loola tacaalo ayaan maanta ku baranaa hadduu alla idmo sida shaashada ka muuqato surgeon doctor oo badanaaba waxa sameeya waxa waaye waa dhakhtar ama kalkaaliye sida shaashada idinkaga muuqato waxa waaye dhaawaca wuxuu soo gaaray cunugan aad aragtaan oo 6 sano jirka ah waxaa loo yaqaanaa John waxaa soo gaaray dhaawac xil uu la ciyaarayay asxaabtiisa ama saaxiibadiisa waxaan rabnaa marka dhaawaca soo gaaray qaabkan ula tacaali lahayn ayaan rabnaa in aan wax idinka tuso sida hoos aad ku aragtaan waxaa ku qoran he needs quick first aid doc taas micnaheedu ay tahay in dhakhtarku inuu ugu baahan yahay gargaar caafimaad degdeg inuu ugu baahan yahay waa kan dhaawaca sidaad aragtaan waxaa soo gaaray John laba dhaawaca soo gaaray oo qaybta lugta ka soo gaaray labadaas dhaawac ayaan la tacaalaynaa soo marka ugu horeysta labada ugu hore aad qaadayso waa maxay apply sanitizer on the wounds taas micnaheedu ay tahay marka ugu horeyso inaad wasaqdii iyo waxyaabihii meesha dhaawaca dhinaciisa ku yaal inaad ka nadiifisid adigoo isticmaalayo gauze ama maro nadiif adigoo isticmaalayo ama faashado nadiif ah ayaad isticmaalaysaa waxyaabaha aan isticmaali doono waxaa kamid ah kow inaan isticmaalo wax loo yaqaano sanitizer wipes oo ah marooyin nadiif ah oo jeermis dilo dabiici ama artificial leh jeermis dilo loogu talagalay warshada ay ku saarto artificial ay leeyihiin soo asiga markuu horeys waxaad ku nadiifinaysaa dhaawac dhinacyadiisa wasaqda saaran haddii cara ay ku jirto wixii soo gaaro dhan ayay meesha ka nadiifinaysaa waxyaaba kale ee aad u baahan tahay si aad dhaymo u samaysid waxaa kamid ah inaad soo diyaarsid iodine inaad la timaadid gauze nadiif ah gauze waxa waaye faashada marka la jarjaro oo mashiinka wax lagu nadiifiyo sterilizing mashiinka ama sterilization mashiinka marka la marsiiyo oo germska laga nisaho laga dilo ayaa waxaa loo yaqaanaa gauze waxaa loo yaqaanaa faashada la nadiifiyey waxaad soo diyaarsanaysaa gauze-kii suuf nadiif ah iodine sanitizer wipeski oo marooyinkii marka ugu horeyso intaadan dhaymada bilaabin meeshaad ku nadiifinaysay bandagekii haddii uu u baahan yahay tolin iyo meeshii la tolan waxaa soo diyaarsanaysaa qalabka wax lagu talayo oo ay ugu horeyso needle holder oo ah needle holder waxa waaye birta lagu qabsado cirbada wax lagu talayo forceps oo ah markii aad wax ku toleysid waa forceps idan waxay ka koobanta waa bir laba af ka kooban oo aad cirbada idan ku qabsanaysid waxaad kale soo diyaarsanaysaa calambres ama hemostat ama artery forceps oo iyagana runtii ku suuragelinaya haddii xidid uu furan yahay whether it's a vein or artery si aad ugu qabsato soo qalabkaas ayaad soo diyaarsanaysaa kadibna waxaad bilaabaysaa shaqadaadi soo marka ugu horeysa waxaan ku horumarnaa dhaymadii waxaad soo qaadanaysaa sanitizer wipeska soo qaadanaysaa waxaad ku nadiifinaysaa meesha dhaawaci soo waad aragtaa meesha dhaawac nadiif ay noqotay soo dhaawacii kale ayaan u gudbaynaa asna sidoo kale waan ku nadiifinaynaa asna isbedel ku dhaca bal eg waa ka asna wuxuu noqday nadiif ayuu noqday so markaan waxaad samaynaysaa marka antiseptic germs dilihi oo ay dhintii iyo gooskii ama suufkii ayaad marinaysaa so stepka labaad waa ka soo sidaad ka aragtaan calaamada guduudka waxay ku muujinaysaa soo qaado suufkii oo ay dhinta lahay kadib meeshii germiskii aad marinaysaa si aad meesha ugu dhigtid meel germiska ka dilan kadib maxaad samaynaysaa meesha markaad nadiifsatay haddii ay tahay meel u baahan in la tolo waxaad soo qaadanaysaa qalabkii wax lagu tolaayay
so meesha waxaa kugu qoran you did a good job, stitch the wounds. taas micnaheedu ay tahay tol, meesha dhaawaca waa tolaysaa. kadib haddii dhaawaca uu u baahan yahay in la tolo, oo markaad fiiriso qaab ahaan haddii meesha dhaawacay weyn tahay ay tahay meel ku habboon in la tolo, waxaad soo qaadanaysaa qalabkii wax lagu tolayo. laakiin hadda anaga abkaan isticmaalayno wuxuu u diyaarsan yahay cirbadii qaab automatically adiga aad samaynaysid. so waxaan soo qaadanaynaa cirbadii, kadib waan tolaynaa. so marka waxaad qiyaasaysaa meesha dhaawaca jeex intuu la eg yahay, inta tulin ee geli karto, inta stitch inta mor la toli karo. ma 4 qodob aad galaysa, ma 5 qodob aad galaysa, ma 3 qodob, adiga ayaa qiyaasi kara. laakiin kan 4 ilaa 5 ayaa galaysa. waan ku fiirinaa inta galaysa. so marka hore isku qabanaysaa kow, qodobka labaad aan ku qabanay, qodobka saddexaad, qodobka afraad. okay 5 qodob ayaa gashay. kadib waxaan u gudbinaa qaybta kale, idin sidoo kale inta qodob ay galaysa fiirinaa, 2 qodob, 3 qodob, 4 qodob, asna 5 qodob ayaa gashay. kadib maxaa naga rabaa marka? excellent job, shaqo fiican ayaan qabanay. then kadib meeshii waxaan saarinaa bandage. continue dheh, then bandage ka soo qabo, kadib bandage ka saar. dhaawacii labaad asna sidoo kale waan u gudbaynaa, asa waxaan soo qaadanaa bandage kalaad waan saaraynaa. so bandage-ku ku saar, dhaawacuu ku daboolan yahay. we did a good job. aada u mahadsantihiin. muuqaalka la share gareey, wixii commenti waad iisoo gudbin kartaan. intaan muuqaalkeena dib aan ugu kulmayn insha Allah, asxaabtiina la wadaaga, halis caawiyo. qofku markuu kusoo gudbinayo cilmigiisa iyo aqoontiisa, adigana waxaa laga rabaa inaad ku caawisid, inaad u share garaysid. lacag badan kaagama bixaysid inaad muuqaalka share garayso oo aad asxaabtaada la wadaagto. dhakhtarka wax kuu faa'iideynayna waxay u tahay dhiirigelin. in muuqaalo badan inuu kuusoo gudbiyo aqoontiisa oo kugu tabarucane waxay u noqonaysaa in uu kusii dhiiranaado intaas in ka badan inuu kuusoo diyaariyo. marka insha Allah in muuqaalka aad share garaysaan anna waxay ii tahay dhiirigelin. adikana insha Allah waqti badan lacag badan idinkama bixayso. halis caawi insha Allah. aada u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.